الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. درسكان وحو قبل أما يأوين كل حجرنا آيات بقول يلح أكمل سورة المائدة. وعند صوت المعنى مركا سبب نزولك آيات أي كسو دكتين أما آيات كان صدح ضاهي iyo inay yihiin aayaadkan saddexdaahi kuwa markaas ugu ishkaalka ama muruga ama adag xagga waxa weeye macnaha iyo xukunka iyo icraabta iyo qiraa'adka inay markaa quraanka kuwa ugu adag yihiin ayaynu soo tilmaanay qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu li markaa yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa aliya nabi rumeeyow shahaadatu baynikum idaafada markaa shahaadiya baynakum markaa laysu idaafaynaya وعلى الاتساع بين وشهادة ما بينكم وحد حدينا مرخاتي وحوية قرم مرقاس وحوية مرخاتيه إذا حضر أحدكم مركم مدكين كسو حاضروا الموت أي أسباب الموت جارد أسباب تالي مركا أي كسو حاضرته وحوية qofka dee ajashiisa iyo wakhtigiisa ay dhowaadaan markhaatigiisu waxa weeye iyo cidda waxa ka markhaati noqonayaay waa xiinal wasiyati dardaaranka agteedana markhaatigiisu ama xiinal wasiyati uu ku soo xaadiro asbaabtii geeridu waa ithnaani waa calaa taqdiir mudaafo liannahu dee shahaadadu waa laba shahaadadii laba maaha marka waxa weeye shahaadatu ithnayni laba markhaatiga dhexdiinu waxa weeye marka midkiin geeridu ku soo xaadirto ee uu dardaarmayo waa shahaadatu ithnayni laba markhaatigood weeye laba ayaa la markhaati gelinayaayo markhaati ka noqonaya ama markaas waaba daacilo waxaa la odhanayaa shahaadatu baynikum waxa weeye idaa xadara axadakum lowtu xiina alwasiyati an yashhada ithnaani waa inay laba marakacaan oo laba waxa weeye markhaati laga dhigto labadaas baa ilaahay yidhi dawaa cadlin oo cadaalad u saaxiib ahoo laba qof oo markaas waxa weeye cadaalad ku sifaysan oo lagu yaqaano cadaalad iyo toosnaan ayaa ka markhaati noqon oo minkum idinka ka mida muslimiin haddaad tihiin laba muslimiina ayaa ka markhaati noqon minkum qabiilada muusiya iyo qoladiisana waa layidhi laakiin ma sugna markaa haddaba shahaadadan waxay leeyihiin culimmadu ama mufasiriintu si ay u badan yihiin waa shahaadadii xuquuqda laga marakacayey ee lagu ilaalinayey lagu gudayey mufasiriinta qaar waxay leeyihiin mee shahaadadu halkan waa u imaatinka iyo usoo xadida wasiyada iyo dardaaranka iyo maya waa dhaar ayaa laga wadaa baa la yidhi marka waxay leeyihiin culimmada qaarkoodna labada qof ee markaa arrintaa ka markhaati noqonaya waa laba shaahid iyo maya waa laba wasi oo waxa weeye loo dardaarmayo ee markhaatiya maaha waa laba wasi oo loo dardaarmayo iyo maya waa laba markhaati waanay yani sida markaa aad ka arkaysa dee aayaadkana labadaba way isugu jiraan oo markhaatina way noqonayaan laba wasi oo loo dardaarmayna way noqonayaan sidaa daraaddeed baa markaas waxay leeyihiin mufasiriinta qaarkood idaa araada an yuusiya wa araada an yushhida marka uu doono inuu dardaarmo isla markaa dardaarankiisaana markhaati u sameeyo shahaadada iyo marag furka markaas waxa weeye isla markaa labada wasi ee loo dardaarmayna noqonayaa idaa xadara axadakum lowtu xiina wasiyati ithnaani waa laba markaa dhinacna waa ka markhaati haddaan cid kaloo hantidii loo dhiibay aanay jirin isla wasi weyn oo kuwii loo dardaarmay ayay noqonayaan wasiyaduna dee waa qofkoo lagala ballaba arrin muhiim ah waxaanay noqotaa laba qayboodoo midi waxa weeye qofkan in tasaruf iyo hawl iyo muhiimad loo dardaarmo wisaaya la yidhaahdaa qofka loo dardaarmayna wasi baa la yidhahda waa qofkaa la leeyahay hantidaa carruurtaydii gaarsii dadkaa gaarsii mas-uul adigu uga noqo waxa weeye hantidaa u ilaali
wasi baa la yidhaahdo waa weli sharciya kaasi weli jacliya baa la yidhaahdaa midna waa wasiya oo qofkiibaa geerida dabeed wax loo dardaarmayaa la leeyahay markaan dhinto waxa weeye waxaas ayaad qaadanaysaa qofka hala siiya taana wasiya la yidhaahdaa haddase waxa laga wadaa waa iisaagii liannahu waxa weeye mas-uuliyadii xil buu saaraya hantidiisi inay qaadanayo dadkiisii gaadhsiiyaan marka yaa ayuha aladiina aamanuu shahaadatu baynikum dhexdiina yani shahaadatu maa baynikum waxa weeye markhaatiga waxa dhexdiina idaa xadara axadakum lmowtu markuu midkiin geeridu ay ku soo xaadirto markhaatigu waxa weeye xiina alwasiyati dardaarkiisana ay ku soo xaadirto ama xiina alwasiyati markhaatigu waxa weeye ithnaani ay shahaadatu ithnayni laba marag furkood dawaa cadlin labadaasoo cadaaladu saaxiib ahoo minkum idinka mida muslimiin haddaad tihiin ow ama min hayrikum ow aakharaani ama laba kale oo min hayrikum min hayri lmuslimiina muslimiin aan ahayn awdani litakyiiri maha waa litanwiico haddii la waayo laba idinka midoo muslimiina waxa marag kacaya oo markaa dee wasi iyo markaa markhaatiba noqonaya laba kaloo min hayrikum min hayri lmuslimiin ama ahlu kitaab ha ahaadaan ama yay ahaanin sidaasaana jumhuur mufasiriin ay ku tegeen min hayrikum waxyaalaha culimmadu ay isweydiiyeen aayadda marka laga hadlayo waxa weeye waxay tilmaamaysaa in dee dadaan muslimiin ahay ay markhaati noqonayaan marka aayaadba mansuuq baa mise ma aha oo waa muxkam waxay leeyihiin markaas aayaddu waxay tilmaamaysaa cid aan muslimiin ahayn in markhaati laga dhiganayo laakiin waa marka aan muslimiin la helin safarna lagu sugaya wasiyana ay tahay sidaas ayay yidhaahdeen markaa aayaddu sidaa marka la yidhaha muxkama weeye oo lama nasakhin sidaana waxaa ku tegaya markaas waxa weye ibnu cabbaas iyo abu muusa alashcari cabdillahi mascuud iyo in badanoo markaa taabiciintii ka mid iyo kuwii ka dambeeyey imaamu thawri abu cubayda alqasim ibnu salaam imaamu axmed iyo keyrkood baa ku tegay waxa leh shahaadatu ahli dimma muslimiinta way u bannaan tahay wasiyada safarka dhexdiisa markaan axad muslimiinta la helin oo arrintaana waxay ka dhigeen xugun caam ahoo waxa weeye ciddaa markhaatiga laga dhiganaya waa cidaan muslimiin ama ahlu kitaabada ama keyrkooda ahaadaan qaarkood baa ahlu kitaabka uun markaa ku gaar yeelaya sidii sabab nusuulku ahaa laakiin saxiixu markaas waa inuu caam yahay alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab koox ahlu cilmigaahina waxay ku tegayaan in aanay markaa min hayrikum ayuunbaa ilahay yidhi ahlu kitaabkumuu qeydin in kaloo ahlu cilmiga waxay ku tegeen inaanay bannaanayn cid aan muslimiin ahayn in markhaati markaas laga qaado muslimiin markhaati looga dhigo mutlaqan iyadoon la kala qaadin aw aakharaani min hayrikum markaas siday leeyihiin waxay leeyihin min hayri cashiiratikum yacni cashiirada iyo markaa qoladii waxay markaa aayadda leeyihiin dawaa cadlin minkum laba cadaaladu saaxiib ahoo markaa cashiiradiinni iyo qabiiladiinni ka mida aw aakharaani min hayrikum ama laba kaloo markaa cashiiradiinnii iyo qabiiladiinni aan ka mid ahayn iyo meeshaadaa waxa laga wada dhaartii qaarna waxay dhaheen mee xukunkani waa mansuuq oo xukunkan waa la nasakhay waashhiduu dawaa cadlin minkum baa ilaahay yidhi miman tardawna min ashuhadaa'i baa la yidhi oo yacni gaaladu cuduulna ma aha qaar yacni laga raaliya xagga markhaatigana ma aha sidaana markaas waxa weeye waxa ku tegey waxa weeye ayma fara badan ayaa ku tegey oo imaam abu xaniifa uu ka mid yaho maalik uu ka mid yaho shaafici uu ka mid yaho jumhuur lfuqahaa ay ka mid yihiin aayaddu waxay leeyihiin waa mansuukha ayay leeyihiin oo waa la nasakhay xukunkeedaas ama arrintaa gaarka ah ayay markaas waxa weeye aayaddu ay ka hadlaysay culimada qaarna markaa dee xukunkeedu waa ka caamka waxyaala xukunkeeda markaa adkaynaya ayay ka mid tahay ilaahay waxa uu leeyahay aw aakharaani ama laba kale haddii la waayo ayaa markhaati noqonaya oo min hayrikum min hayri lmuslimiin waa in antum darabtum in darabtum antum darabtum waa haddii aad safartaan fi lardi dhulka dhexdiisa oo fa asaabatkum ay idin haleesho musiibatu lmowti oo idinku soo dirto musiibo mowda musiibo markaas geeriya idinku habsato oo markaas dee waxa laga wadaa
يعني أسباب تأذي هي مركز وحوية ده وحيانه مركز أيدين كوها بسدان هرنا عوها اللي هدو جريودا مركز ده وحمد دار من مجرين تحبسونهما وصاحب ليسان وسوتشوتش ليسان خطاب كان هذا الكلام وحكون عيادتك ورثتها أما ضدك مدحضها تحبس لبدا كلا ويد صاحب بس ويد حبس كلا على ويد سوتشوتشين marka waana laga sifayn karaayo intan kalena muctarida laga dhigi karaa oo waa kharani min ghayrikum kuwaasoo taxbisuunahuma asxabisa soo joojinaysaan ama waa hadal bilaamayo taxbisuunahuma waydun soo xabisi oo waydun soo joojin min bacdi salaati salaada dabadeed ayaa soo joojinaysaan salaadaasi waa tee qaar baa waa salaad duhur ما هو أي صلاة ما هو صلاة ده مركي أيجو يعني أي تكنيان صلاة أهل الدين تودوي وحي سعوا لماذا حوشنيان إن صلاة عصر ده بدي طاي وهي صلاة سوى صلاة وإنه فضل بدن وقت يدنا وياه حافظوا على الصلوات والصلاة المسلمة إلى الجار صلاة ولا لي بإلهي دار تدبر الدار تانا واتي وهلس بدن تهاي ويا النبي صلى الله عليه وسلم يصدح إلهي ما نتقي الله هذا مايو إيجي مايو ونن وحكمدها نن مركا دارتي دار بين بعد العصر ليقتضي بها مال رجل مسلم قف مسلم مالكين كوين كوغوستو وبعد العصر قف دارتي بيلي او دارته بعد العصر قاد بيوسي درنتاي سيده مركاس waxa weeye de gelinka dambaba iyo siiba jumcahana marka de بعد العصر ay saacatu lijaabu ugu jirto ahlu kitaabkuna waa weynayn jireen waliba de waa xilliyadii markaas waxa weeye ilaa markay cadeedu si dhacaysay markay soo baxaysay bay markaas waxa weeye ay caabudayeen ahlul adyaan oo dhamina waxa weeye xilliga way iska ilaaliyaan marka salaada casar dibadii ayaa la soo joojinaya تعبسون من بعد الصلاة فيقسمان ودارنيان لبداسي way daaranayaan oo akhraan min ghayrikum ma laga wada in irtabtum hada shakidaan waa soo joojinaysaan hadalku wuxuu ku dhacayaa dadkii warasada ama dadkii xukamta ah hada ka shakidaan waa soo joojinaysaan oo fayuqsimaan waxay markaa ku daaranayaan in irtabtum hada markaa ka shakidaan arindooda waa daarinaysaan فيقسمان ويقولان وحي أرانيان مركا دارتودي كو أرانيان لا نشتري به كوي بسن مينو دارتا مركا وحوية أما مقع إلهيان كو دارانينو ثمن إيا اللعق مركا كوي بسن مينو مع هذه يبالن كان قال لي أنه نمان وحي يرضى بسرية منهن أو بيرو بريريو أدو يرضى بسرية منهن أي أرانيان ولو كان هباء هذا كان لو دارنيا أما كان لو مرق فريا لو مرق فريا ذا قربا قرابة مذا ها هذا قرابة وصاحبة ها هذا أنه يحمين ولا نكتب قرينا مينو شهادة الله إلهي مرخاتي سنة إلهي والنفري إلهي النصاري إن المركا جودا معيتهاي تانا قرين مينو إن أنه إذن هدان قرينو لمن الآثمين كوا دنبابي أيان كمين دقرينا تاسي وحوية وآيادي كوباد إشكال كذا مبطنا لكن دي عرابتي دي إشكال كذا يربى ديهي وأيضا ضمين قال الله تعالى يعرف فإن عثرا هدين لطالعضو هدين لأقادو على أنهما لبدي دي أن مسلمين تأهين يا مرخاتية يوصيقا بقى هاي لداري استحقا إني متين إثمن ذنبي إني متين هدين لأقادو الله تعالى عضو فآخرار لبكالي لما مرخاتيو كلا يقوماني ساقية مقامهما هلكودي ميساقودي لبكالي أيا إساقية أو دارتي يا مرخاتي بأيا لقصو تشهينيا ومن الذين كوي كمينا استحق عليهم أي كمتين الأوليان لبدا ميت كوغحيا إن يؤصوا هرم مريان أو يؤصوا دارتران وحوي شهادة إيو دارتها
فيقسمان بالله إلهي بي كدارنيان ويقولان waxa soo qadar waxa oreeyaan la shahadatuna shahaadada iyada marxaad burkayga dhaarta iyada ayaa xaqu kam mudan oo ka rumada min shahaadati ma shahaadadoodii dhaartoodii wama tadayna manaan xad gudbin inna annagu idan hadan xad gudubno la min adh-dhalimin kuwa dhaalimiinta ayaan ka mid noqonaynaa ilaahay wuxuu leeyahay fa in uthira hadii la ogaado la daalacdo oo soo baxo على أنهما لبدودي لداريي مركان مسلمين داهين إصحقا إني متين إثما دنبي إني متين حدي مركا لطالع دول لأوغادو أو إني بين شاقين مرخاتي بين رأي فرين حدي صوب بحضو أو إني شهادتي وصيدي بخياميين لأوغادو بيننا كل أرتين أو دي وحي مركا سوحوي أي مركا كدارتين أي مركا سعدي أي مركا يعني سيين أما أي كيبيين با مركا سوحوي لغو أوغادي سيدي مركا سبب رسول كما هاي قراسي أي كدارتين دي لغا هلاين نمانكي أي كيبيين مركي لو يدين هلبان نبان لغا إيبيين وانا دارتي كدب هدين لو قادة فإن عثيرا هدين لو قادة لغو ترون الله طلع على أنه يستحق إثما دنبي إنا يموتين أو يعني وسيدي خياميين أو بين كدارتين فآخران فشاهدان آخران لما مرخاتي أو كلين أو حكتدي مرقا قفقا انتهى أيها يقومان ساقيا مقامهما هالكودي هالكي أي ساقيا يكون أرتين أيها لما كليس السود تاقيا انسي أي شهدوا يا مرخاتي وذا بنتو ذا أبريان من الذين استحق عليهم الأوليان هالكاسوي أصو حقا واقروا الأولين نبوا قروا لبدا منا وبن بحمين لأنه هو ينقسم مرقني يساوون من الذين استحق عليهم قردا إنه تعالى إيا الأوليان كلمة منكو قابصرينا لبا تفسير كليا أيانا إنه مركا كسو قابصرينا يو وحوي أي مفسرين توبريهن أقو يران إلى لباتن تفسير آيات داوان كأيغي مركا من الذين كوي كمدا استحق عليهم أي كمتين الأوليان اللي بدأوا حجا فاعلك استحق أوليان كانوا خلينا من الذين كوي وحي ساقيا ميشودي أو مرق فركي يدارتي سوسو تاقيا لبكالي من الذين كوي كمدا استحق عليهم كركودا أي كمتين الأوليان اللي بدأ ميت كان يقفقا نتي وحيا أي كمتين أن يجردوهما ويختاراهما للقيام بالشهادة لبدا وحيا كمتي ددك قرابدا إن يوصو هرم مريان يوصو درتران إن شهادة يمرخاتيغا أيغو أي بينيان لأنه مركا يمكا ديلا يسقبصدو مثلا قف دينتو oo kale arrintii ay dhaarisa soo taagto dadka soo naba dhaariya waxa la yiraahdaa meeday xigtadiisa ugu xigay meeday dhaxlayaashiisa baa loo dharayaa marka waxa isa soo taagaya laba marxaati oo kale ay halgoys oo kamida kuwa qaraabada iyo dhaxaltooyada iyo warasada xigtada ay ku muteen labada ugu xiga meedku in ayaga ay soo qadimaan oo dhaarta u soo qadimaan oo ay marka dhaartaan oo ay ku muujiyaan beenta marka kuwii hore ay sameeyeen min alladina kuwii kamida istahaq alayhim ay ku muteen alawlayaan labada wixiga maxay ku muteen mafcuulki waa go'an yahay an yujarriduhuma imiga sabaqshari oo kala laga soo qaadanaya wuxuu leeyahay min alladina kuwii kamida istahaq alayhim alawlayaan أي كمتين لبدا وحجا من بينهم بشهادة كوا وحجا بشهادة أي كمتين أن يجردوهما إلى يوصل درتلان ويختاراهما يدورتان للقيام بشهادة إلى شهادة كقمان أو ويظهروا أي موتيان بهما لبدا كذب الكاذبين لبدا بنت شيء بنتو لكونهما الأقربين إلى الميت أهنشها أيهم كوا قدوا ميت درادين وحكى ولا يريد ومن الذين كوي كمدا استحق عليهم الأوليان أي كمتين لبدا وحي بالميت وصيته التي أوصى بها وصيته دردارا كي ودردار مي
kuwa markaas ugu xiga ee ayagu mutay kamida من الذين كوي كمida يستحق عليهم أي كم متين الأوليان بالميت ميت ugu xiga wasiyatu dardaarankiisa ay ku muteen alati awsaabiha ila in dardaarankiisa waxa yeelanayay ku ugu xigay فآخران يقومان مقامهم من الذين كوي كمida يستحق عليهم الأوليان labada ugu xiga ay ku muteen أن يجردوهما inay markaa u dhartiraan oo u soo horumariyaan inay ku qubaan markaa shahaadadaas iyo waxa weeye markhaatiga أما هما الأوليان يعني لكن الأوليان وقردا كلا أيام مركا أنت بدن يعني لقد يا مركا متين لخبر المحذوف قردا كلا مركا أحبوك بمحمين فيقسمان مركا سوا دارنيان بالله إله أي كل دارنيان إن إلا وضع هور مركا خيامة يسميين ويقولان وحنا وريان لشهادتنا شهادتنا هذا وحل لقوضا دارت يدا أيال لقوضا لأنه فشهادة أحدهم 4 شهادات لعن كوكله دارت مركي قرب شهادة لك عبرها لشهادتها دارت يدا أحق كم وضن أو كرم بدن من شهادتي ما شهادة يدارتو دي وما اعتدينا منان ننحد بدين ودارتها ركبان ننحد بدين إن أنه إذن حدان مركز وحوية كوحد بدبنو لا من الظالمين kuwa ظالمينta ayaan ka mid noqonaynaa ee waxa weeye marka kuwa nafooda dulmiyay cid kalena dulmiday sidaas markaas waxa weeye labadii shahaadada ay ku buraysaa nimankana markaa de waxa weeye lagaga magdhabay wixii sameeyeen qala lahu ta'ala yuhri dhalika ka awnka ilaahay soo sheegay nimanka in la soo joojinayo la dhaarinayo salaada casar kadib dhaarta loo soo joojinayo haddii ay khiyaanadoodu cadaato dee kuwa kale in laga daba keenayo markaa ka daba dhaaranayaan ayaa adnaa u dhow an yaatuu inay la yimaadaan bishahaadati shahaadada iyo marag furka inay ula yimaadaan calaa wajhihaa sidii markaas waxa weeye ay ahayd inay ula yimaadaan aw yakhaafuu amaba ay cabsadaan an turadda in la celiyo aymaanu dhaara in la celiyo bacda aymaanihima dhaarahooda kadib واتقوا الله إلهي كعبسا واسمعوا مقرأ والله إلهي لا يهدي القوم الفاسقين قوم الفاسقين تا إلهي مهنونيو إلهي وحلي ذلك أرندا عن صوت شاقني حكم كان مرقاس وحوي لا صوت شاقني ما قاعد يلقى شاقين دارينيو بعد العصر لا صوت شوشينيو هذا خيامته عادات الله بكلا مرقا لا قد دارينيو أي أدنى أدو أن يتبشات على وجهها إن الشهادة أولي مادان على وجهها أن يأتون إليه مادان بشهادة على وجهها سيدة يهيدين إليه مادان تاسا أدو أي حنبارين أيضا تعريف يا خيامة مدنا وآنك كصبينين دي وحوية مركا لنارين أي مركا هلقا سوچوشنا وي بقريان ومركا سيدة يهيدين صبينيان أو أما يخافوا هدي أنا مركا وحوية دي عبسي إلهي كتشرين أو يخافوا أما يعبسان أن تردين لعليو أيمان دار بعد أيمانهم دار تودي الدبدين إن دار دنبل سوء عليو أدو يترور الثدي عين دارتان أو يحيي شقريان متان أيقون ساكو فذي حبان إنا أما أولي مادان مركا وربا ويعداد دي عبسان أما هدي عبسان إني كعبسان مركاز وحوية فضيحين كعبسان تاس يولو واتقوا الله إلهي كعبسان واسمعوا مقرأ كعب سيلا وحي فرين فريه وحيدين ديدين إلهي كلا يرادم واسمعوا مقرأ إلهي أمرك سي وحا ليدكو أغريه وحا ليدين لا يحي ويا مقرأ والله إلهينا لا يهدي مهنونين أيوه القوم الفاسقين قلنا فلاقدا وحا ويا إلهي تشدقيسا كم فلاقا ودي وحا ويا إلهي كبين بحضي إلهي مهنونين أيوه وحق إيا مرقاس وحا ويا تنتطوصا إلهي كهانون ما أيوه إلهي لي درس قال إنه وجه والله أعلم